isagoo keligii oon waxba lagu darin yaaban lahayn bidco weeye kan Soomaalidu shirki way احتفالك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الله يا وانا مشروع أرهن مشروعه وشرعنا الإسلامك يعني وجدي waxay noqotay bidco maalinta ka dambaysa irid cusub si furanaysa ولذلك المولد إفراط تفريد كل عقولنا بوري كرتال كاسي ديدي قارن وحبي كتر درين إيجانا كواني بكل بايان ميلو بدومر يعرور تلا صار ميلها قار كود مظاهرات أي سمين أيام أي دواقيان عالمية بورر للستو ولقوا مجعابة يا مولد كي النبي أيام لتشوجا وإن لو وينيا فيري وحاركينا شبهاري مركز سوجيدين niman akaalin oo cuntada ku fiican oo maajotorayaal ah oo sida wax loo cuno yaqaan oo kiiban neef laqa ayaa hawlahan diyaariyay xoolo meesha lagu laayo meesha bariis badan iyo hilbadan ay ku dhamaadaan lafa badanna meesha laga urursho oo saxamo weyn la murdiyo niman doonaya hawshan sameeyay oo runtii inaan maalintan xasuusano wax mustaxsan oo aad u wanaagsan weeye nabi maxamed sidoo alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nabi maxamed uu sameeyay dhamayso aan sugu nimaadna bidca markaa عالم الإسلامي أردن ميل والبلجوجو سيدنا احتفالك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الله يا وانا مشروع أرهن مشروعه وشرعنا الإسلامك يعني وجدي واحتفالك النبي الله صلى الله عليه وسلم حي لي hadduusan jiri lahayn waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabkan loo ixtifaalayo iyo dabaaldegadan la sameeyo waa sax ma aysan jirin laakiin wuxuu ka mid yahay ixtifaalkan la sameeyo waxyaalaha faraha badan oo khayraad ah oo la bilaabay nabiyullaahi maxamed gadaashiisa sallallahu alayhi wasallam oo in shaybaarka kitaabka iyo sunnaha la soo marsiiyo وحي النبي صلى الله عليه وسلم قداشي سيماده إن شيبارك كتابك يسنه الله سوى مرسيه وخلد هدي كتابك يسنه أي كو أركان إلا الدايو لبرك قداشي سنة لغتور هدي قرآن كي يسنه أي سود وين أيان وأي تاغير أيان إن مدح الله سارته تاسي وفهم كي السلف الصالح وقال شيء كمان كنا نقعنت كوهينا والنبي كدم بيجي ومر والبان السمين إنه مولد ككلية معها مركز سيدا السلف الصالح فهم كاي شريعة وفهمين وحوي وحين النبي كدم بيقول أهم بيان الله بندقين كتاب كي سنة ضوضوب هالله تورا سلفكم مدهن بل وحيرا هلا كلا قاضي هلا كلا شان بيجي وحن هديهين هلا تورا wax wanaagsan oo kitaabka iyo sunnihii ay taageerayaan hadduu yaana hal la qaato ihtifaalka mawlidka kaliyana ma ahan maalmahan marka waxa jira caadina sanad walba bishan oo kale in ay dadku nooleeyaan bidcada loo yaqaan mawlidka bidcadaas oo waagii hore si yara roonbayba ahaan jirtay hadda ka dar oo dibi dhal ah meeshay maanta marayso in heer la gaarsiiyo xataa in laga dhigo ciid weyn munaasabad weyn oo ciid ah oo dawladaha qaarkood xataa ay yaani ciid ahaan u aqbalaan oo holiday laga dhigo ilaa heerka maraysa loogu diyaar garoobo sanadkii markay soo socoto lacag aad u fara badan loo sii ururiyo qoliyo dadka ka shaqeysto jeebkooda wax ka urursaday ay munaasabada sanadka sugaan oo Allah yaa idin gaarsiiya waxay noqotay bidco maalinta ka dambaysa irid cusub si furanaysa arintaasi ma jirin waqtigii quraanku dagayay lama aqoon wax la yiraahdo mawlid saxaabadii nabigu intay noolaayeen waqti bay nabiga ka dambeeyeen in badan oo ayaga kamida intay noolaayeen lama aqoon wax la yiraahdo mawlid ardadoodii oo taabiciina intay noolaayeen lama aqoon wax mawlid ah quruntii saddexda ahaa aimada waaweyn ay noolaayeen lama aqoon saas daraadeed atahadda hal kelimo oo ku saabsan mawlidka
carwakaase ha laga soo guuriyo imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo imaamu axmed iyo abu xaniifa iyo awsaaci iyo thawri iyo ibnu cuyayna car ha laga soo guuriyo maxaa yeele maba jirinba mawliidku marka la raad qaado yaa bilaabay xididkiisu ma fiicna niman zanaadiqa baa bilaabay oo faatimiyiin la dhihi jiro culimmada islaamku isku waafaqsan inay gaalo ahaayeen oo ka talin jiray maqrib alcarabi iyo masar waqti ka talin jiray nimankaasaa bilaabay marka hore ixtifaalka nabigu nuuc ma laha haddii salawaadka la akhriyo laysu yimaado oo ixtifaal waaye haddii siiradiisa laga warramo ixtifaal waaye haddii sadaqa laysu keensado ixtifaalkii nabiga oo loo dabaaldegayo lagu farxo waaye wax kastoo khayra haddii mawaacido laysu gudbiyo ixtifaalkii waaye haddii qur'aanka la akhriyo niman subcinaya ama qur'aanka kutuba inta ka akhriya sii hormarinaya sidaba la yeelo daa'iman la sameeyo ixtifaalkii waaye ixtifaalku nuuc khaasa ma laha adiladiisu culummadu waa ku daashay oo waa la wadaa lamana kala gooyo sanad walba ilmiyaa xafida sidii loo aqraaya mawliidka soomaalidu waxaan ka hadlaynaba maaha anu dee waayahan meelaha lagu dhiga ma tegine kii aan soo gaadhnay naqiinay waxaan idaacadaha iyo warbaahinta isagoo laga qaadaya maqallo islaamnimaba maaha ka soomaalidaan ka hadlaya bidaybac iyo barsanjigana waxa la qaado shirki miidhan wey isagoo keligii oon waxba lagu darin yaaman lahayn bidco weeye kan soomaalidu shirki wey مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلقك كلهم ومن تذكر جيران بذي السلام مزجت الدم عن جرى من مقلة بدمي برداس محا كتشرة شركي باك بوح عن قيب ذي كم قشية مركب أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم أقسمت بالقمر بانكو دارتي من حلف بغير الله فقد أشرك النبي قال الحديث عن عمر صلى الله عليه وسلم أقسمت بالقمر بانكو دارتي يكون بالنيادي marka hadda intaan ummatul maxamed waxa weeye nabiga waa la jecel yahay rasuulka kaleey salaatu salaam maxabadiisuna waa waajib laakiin inaan maalintan xasuusano wax mustaxsan oo aad iyo aad u wanaagsan weeye oo si gaar ah aan maartay u xasuusano mustaxsan weeye maxaa yeelay nabigeena kaleey salaatu salaam dhalashadiisa asaga ayaa ka waramay hadii la yiraahdo yaa ka sheekeeyay oo si khaas ah maalinta uu dhashay u sheegay maxaa yeelay xadiis oo maartay Abu Qataada uu wariyay oo sanadkiisu saxiix yahay Imaam al-Bukhari ay wariyeen saxiixayna ayaa waxa weeye nabiga kaleey salaatu salaam maalin asxaabtiisa waxay weydiiyeen waxay yiraahdeen maartay su'ila xadiiskii waxa ahay Abu Qataada waxa dhahay su'ila Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawm al-ithnain maalinta isniinta soonkeeda nabiga laga weydiiyay dadka markaa weydiiyay maxay rabeen inay isniinta la soomo maadaama nabiga kaleey salaatu isniinta uu soomi jiray ajirka laga helayo muxuu yahay iyagu ka wadeen laakiin nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu tusayaa maalintaas waxa ay tahay iyo waxay ku mutaysatay in la soomo markaasuu waxa weeye asagoon aadin jawawdoodii ayuu wuxuu dhahay daaka ayuu dhahay yawmun wulidtu fiihi wa yawmun bucistu fiihi wa yawmun unzila calayhi dhahay maalinta isniintaasoo maahan waa maalintii lay dhalayo dhahay rasuulku nabiga kaleey salaatu salaam maalinta aniga lay dhalo way nabi maxamed kaleey salaatu salaam annagu hadda waxaan ka waramaynaa nabiga maalintii la dhalan ka waramaynaa nabiga uu dayanayna kaleey salaatu wasalaam wa yawmun bucistu fiihi waa maalintii lay soo bixiyay ويوم أنزل عليه وما أنت لي يسود جي وحيga intaasay kulansataa u dhahay isniintu marka maqaamka iyo maaragtay weynaynta iyo inay ka socnaato ayaamaha kala bacdigood waxaa keenay in nabiga kaleey salaatu salaam maalintaas lagu dhalay isagaana sheegay waxaa marka lagu weyneeyey in la soomo hadda soomu yawmul isnayn waa macluum marka xuska nabiga kaleey salaatu wasalaam ama la xasuusta taariikhdiisa shacaa'ir badan ay taariikhda adduunka soo martay intii nabiga ka dambaysay marbaheeray aheeday marka waxa weeye waxa meesha mar haddayba
wax shareecada lagu jabaayaysanaayo wax wanaag oo khayra laga samaynayo oo shareecada mustaxsan ku ah kayfiyadu wax ay dhibaato ay iska jirto arrinta baryahan socotay oo dabaaldega ahayd oo guriyihii la seexan waayey oo makarafoonadii meel walba lala dhawaaqayo oo baabuur inta makarafoona lagu soo xiro dariiqa lagula ordahayo oo meel walba dumar iyo carruur inta la soo saaray meelaha qaarkood mudaharaad ay samaynayaan ay dhawaaqayaan calamiyo boorar la sito oo lagu magacaabaya mawlidkii nebiga ayaa la joogaa waa in la weyneeyaa xaggay ka joogaa miisaan ahaan sharciga ilaahay uu inoo soo dejiyey xaggee ka jooga ma wax nebigii sala allahu calayhi wasalam uu yaqaanay oo uu sameeyeyba jawaabtu waa mada saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo naga jeclaa oo nooga aqoon badnaa oo nebiga cilmiga ka bartay dhaqan ay yaqaaneen oo ilaahay ay ugu dhowaadeen oo ay nebiga saatan ku weyneeyeen miya waa mada saxaabada kuwii arkay oo cilmiga ka qaatay oo taabiciinta ahaa cilmi ay soo kordhiyeen oo ayagu la yimaadeen oo ay fahmeen miya waa mada afartii a'immada waaweyn ka mid ahaa ee madaahibta abu xaniifa alimaamu maalik alimaamu shaafici alimaam axmed ibnu xambal afarta madhab a'immadoodii waaweynaa xilligoodii wax la yaqaanay oo nebiga lagu weynayn jiray miya jawaabtu waa mada culimmadii muxadisiinta ahaa oo ajillada ahaa sida alimaamu albukhaari alimaamu muslim alimaam abu daawuud alimaamu tirmidi alimaamu nisaa'i ibnu maajah iyo a'immadii kale oo waaweynaa oo salafu saalix ahaa xilligoodii markii la gaaray wax soo kordhay miya waa mada min ayna lana xaggee naga soo gaaray waxaa ugu horreeyey oo sameeyey qarnigii afraad nimankii faatimiyiinta ahaa cubaydiyiinta ahaa faatimiyiinta sheeganahayay inay aalubayd yihiinoo ku abtirsanayaan nisbada beentaa sheeganayay ee masar qabsaday oo culummadii islaamka oo wax ka qoray dhammaantood ay sheegeen baatinkoodu inuu ahaa shiico daahirkooduna kufriya zandaqo u ahaa guruubka iyaga ah waxyaalihii bidcada ahaa oo masar markay qabsadeen ay la yimaadeen ayuu ka mid ahaa mawlid muslimiintu waxay isugu imaadeen waxa weeye inay dhegaystaan ay ku raaxaystaan siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa aad u yaab badan sida hadda culimmaduba ka warramayeen wax horay u jiri jiray meehee in hadda muran la geliyo oo la yidhaahdo lagama sheekayn karo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin shaacira wuxuu yidhi walaysa yasixu fi ladhaani shay-un ida اxtaaja annahaaru ilaa daliilin walaysa yasixu fi ladhaani shay wax qalbiga ku ansaxayo iyo wuxuu qalbigu rumaynaya maba jiro ida اxtaaja annahaaru ilaa daliilin haddii lagu yidhaahdo maalinka daliil u keen macnuhu waxa weeye waxay ka dhigan tahay nin kale intii meel laysugu yimaado lagama sheekayn karo siiradii nabiga sala allahu calayhi wasalam ninka sidaa leh intii meel laysugu yimaado dad muslimiina meel ay fadhiistaan inay ka sheekeeyaan siiradii nabiga ma bannaana nin kale bal hadda u fiirsada waxay la mid tahay ninku leh maalinka daliil u keen maalinkan inuu jiro daliil u keen الإمام الفاكهاني المالكي أصوح حوليه قرن تضارق دنتيئها بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون وحوليه هاي موليد كان بوري أقرن ما هي بوري وح تاريخه إيا وح أصل دين توكليه هاي وهراد الآن وأبتر لاوي ودبقوا أن هاي كتابك إلهي سنة النبي محمد من نبل لغو سويل ما وح دليله سيدو كالو علماء المسلمين تلو كالسوين هاي الدين كان لقاقاته إيه قروح سنة وناكسن ayaguna laga soo heli maayo waxaan kaloon ku dhaqmin buuri inta diinta ku dhaqmaysan kumaysan dhaqmin
waxaa sameeyey buu niman bataaluun oo muxuu ahaaye shaqaalawayaal ah dadaan shaqo lahayn oo meherad aan lahayn oon camal islaam aqoonin baa waxaan ku dhaqaaqay waxaa kaloo sameeyey buu shahwatu nafsi niman akaalin oo cuntada ku fiican oo maajatorayaal ah oo sida wax loo cuno yaqaan oo kiiba neef laqa ayaa howlahan diyaariyey buu oo in shacabka iyo haweenka iyo masaakiinta iyo caruurta laga soo ururiyo caamada xoolaha laga soo ururiyo kadibna la dabaashaado xoola meesha lagu laayo meesha bariis badan iyo hilib badan ay ku dhamaadaan lafa badanna meesha laga urursho oo saxamo weyn la murdiyo niman doonaya hawshan sameeyay oo runtii masalada mawlidka xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam layskuma khilaafsan jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii ku tuhma ninka kale nabiga ma jeclid bal iimaanku ku mid yahay ninkaas oo xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam iimaan wey iimaanka ku mid yahay laba koox iskuma khilaafi karto waxa la isku haysto waxay tahay xubbigaasee loo cabira bas xubbigaasee u cabirtaa ila xubbi kasta tacbiir raba in la cabiro soo ma wasiiladee wadadee loo cabiraa la isku haya kaliya marka khilaafku waa iskhilaaf basiid waa la isku soo khilaafo ilaa iyo culimmada hore isku soo khilaaftay oo waa bidca idaafiya la yidhaahaa nabiga calayhi salatu wasalaam ixtafala nacam maalinta isniinta markii yidhi maxaa u soomaysaa daaka yooma wulidtu bihi bal nabiga calayhi salatu wasalaam nabi muuse oo guulaystay oo sanad kasta hadda waa soomaa soo maha maxaa dhacay wuxuu ku arkay yuhuud oo dabaaldegaysa wuxuu yidhi annagaa kaga ooleysan wuxuu amray saxaabada inay soomaan marka cibaada inay taawaato waa khilaaf kama taagno marka inay qofka ama sanad ha ahaato asalka waxay ahayd isniin kasta in la xuso nabiga calayhi salatu wasalaam khaasatan dadkeenaan yurub joogo annaga wasiilo oo dacwa inaan ka dhigana wey wasaa'ilka dacwada mawquuf ma aha wasaa'ilu dacwa wasiilo dacwada lagu gudbinayo tawqiif ma aha بلد كستو سيده طريقته دينته هذا سبعه قار كبرتان قران كحفظي قار قران كوريك سو بلاما قار خوريك سو بلاما waxaas dhan waa wasaa'il wey wasaa'il kane tawqiifi maaha marka wasaa'ilka oo anaga hadda yurub u baahanahay oo dacwi ah waxa waa inaan mawlid dhigno waa fiicna walidaalika mawlidka ifraad iyo tafriid ku dhac qolana buure kortaalkaasi diiday oo dadkiiba waxay leeyahay nabiga yaabal xasuusan war ninkii asbuu xasuusan waado sanad xasuusto alxamdulillah de qaar laba sano ka bacdi xasuus la qaarna waxbay ku dareen iyagana kuwaanay ku dhibayaan mawlidkan la iskuma dhibo walidaalika waxay waa banaaya anaga bidca idaafi wa khilaafkeed waa jira aniga waxaan ku jira culimada dhees mawlidku waa banaan yahay saasha isweydiinta le markaa ma aha nabi maxamed weynayntiisa kama hadlayno qofka muslimka ka doodana uu ku gaaloobaya waadix soo taasi maaha qofka muslimka ee nabi maxamed weynayntiisa ka dood geliya uu ku gaaloobaya waa maxay markaa cilladu xagee ka jirtaa cilladu waxay ka jirtaa maalintaa in la xusaamo tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaamo ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xagee ka timi waa dambay muslimiinta badh ay la yimaadeen taarikhyahanada badh imaam almaqrizi fii kitaabihi siduu ku qirinayo waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dowla alfaatimiya markii ay joogtay masar dowladdii ka talinaysay cubadiyiinta la odhan jiray ee qolo shiica ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nebiga calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib faatima xasan iyo xuseen iyo boqorka shantaa inuu noqdo waxa la xusaya lixdaa inuu noqdo waxa la xusaya dowladdii shiicada ahayd baa la riday markii la riday nimankii meesha qabsaday waxay dhahay war shanta shiicadana inaga tuuro nebigana iska xusno shantiina way ka tageen kanna way xuseen culammada wakhtigaa wixii ka dambaysay waxay isweydiiyaan war mas'aladani ma ka mid tahay wixii diintu inoo sheegaysa mise kama mid aha culamada badh waxay dhahdeen war dhibi kuma jirto haddii nebiga la xuso waa kaasi culamo badanina waxay leeyihin war ruuxani ma soo gara laakiin anigu hal kalaam kuu sheegayaa waxaasoo dhan ka baxsan haddaad maqasho mas'alada nebigu ma samaynin ama saxaabadii ma samaynin kama samaynin su-aal baan ku weydiinaya nebi maxamed siduu alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nebi maxamed uu sameeyey dhammayso aan isugu nimaadna bidaca markaa socakaa maaha maalintaad intii nebi maxamed ka adkaato aan isweydiinna waxaa soo hadhay ma bannaantay mise ma bannaana laakiin intiiba haddaanad haynin waxba bidaca ka warramay
إذا النبي محمد مالين هوية لنا مالين والبا كصلي